ay degan yihiin dad aad ugu kala duwan diinta, dhaqanka, luqadda iyo sidoo kalena ku wada nool si nabada. Luqadaha dhexe ee looga hadlana waa Carabiga iyo Ingiriiska. Waa dal xiran oo aan lahayn wax bada kuna yaala bariga Afrika. Dalkan wuxuu daris la yahay dalalka Itoobiya, Suudaan, Central Africa, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Uganda iyo Kenya. Luqadaha dhexe ee looga hadlana ay yihiin Carabiga iyo Ingiriiska. Waa dal xiran oo aan lahayn wax bada kuna yaala bariga Afrika. Bulshada degan waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 12 milyan oo qof. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay sanadkan 2023. Dalkan waxaa mara webiga ugu dheer caalamka ee Niilka Cad. Waa dalka ugu yar caalamka marka loo fiiriyo cimriga. Wuxuu ka go'ay Suudaan inteeda kale 9kii bishii Juulaay 2011. Wuxuu soo maray dagaalo sokeeye oo aad u qaraar haba ugu darnaadeen kuwii dhacay sanadkii 2013 iyo sidoo kale 2016. Dagaaladaas oo ka tagay mahadooyin aad u daran. Heshiis ayaase laga gaaray markii dambe bishii September 2018. Dalkan waxaa ku soo noqnoqda abaaraha ka dhashay musiibooyinka dabiiciga ah sida fatahaadaha oo uu sameeyo webiga Niilka Cad oo inta badan looga faa'iideysan sidii loo baahnaa. Muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa dal cajiib ah oo ay ku nool yihiin dadka ugu dhaadheer caalamka. Ku soo dhawaada daawadayaal 5 waxyaabood oo ku saabsan Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan. South Sudan waxay ku taallaa meel muhiim ah waxayna leedahay kheyraad badan haba ugu badnaadeen macaadinta qaaliga ah sida dahabka iyo diamond-ka. Sidoo kale waa dhul ku fiican daaqsinta xoolaha iyo beeraysigaba. Waa dhul isugu jira mid kulul iyo mid dhexdhexaad ah. Sidoo kale roobkuna ku badan yahay. Heerkulkiisu inta badan wuu ka sarreeyaa 25 degrees Celsius. Inta badan waxay caan ku tahay keymaha ayaa ku badan iyo balliyada ay biyaha fadhiistaan oo waxaa waraabiya webiga Niilka Cad. Sidoo kale waxay leedahay isbeddello cimilo oo aad u daran sidaas kululaanshaha cimilada oo la qabo guud ahaan dunida. Wuxuuna caan ku yahay sidoo kale 2 xilli oo ah xilliga jiilaalka ama xilliga qaleelka iyo xilka oo daadad badan ay ka dhashaan iyo jiilaalka oo inta badanna dhacaan abaaro aad u daran iyo dabaylo xoog badan oo wax walba qaada. Dalkan waxaa ku nool 64 qabiil oo mid waliba uu ku hadlo luqad u gaar ah. Beelaha ugu badanna waxaa lagu sheegaa inay yihiin 1 Dingaha, 2 Nuweerka iyo sidoo kale qabiilka lagu tiriyo Bareega iyo sidoo kale Shilugta. 4taas ayaa ah beelaha ugu badan ee dalkan dega. Inta badan beelahan waxay dhaqdaan xoolaha gaar ahaan lo'da marka laga reebo Bareega oo ah inta badan dad beeraley ah. Sidoo kalena waa beesha caasimadda degan. Dhaqaalaha Koonfurta Suudaan wuxuu u qaybsamaa 2 qaybood oo kala ah shidaalka macaadinta qaaliga ah sida dahabka oo la dhoofiyo iyo sidoo kalena ganacsiga xoolaha nool ku jira isha koowaad ee dhaqaalaha dalka. Beeraha iyo kalluumaysiga oo aan badnayn iyo ganacsiga oo inta badan gacanta ugu jira dadka ajnabiga ah ee wadankan yimid sida soo dhoofinta raashinka, shidaalka, waxyaabaha la isku qurxiyo, uduga iyo dharkuba. Ugu dambeyn yaanan ka ilaawin hoteelada oo ah ganacsiga wax saameyn kuma laha dadka dalkan degan. Waa dal hodan laakiin inta badan gacanta ugu jira ajnabiga ka kala yimid bariga Afrika iyo guud ahaan caalamka intiisa kale. Waxaas ugu badan Itoobiyaanka, Eritreyaanka, Soomaalida, Ugandiska oo inta badan keena qalabka baabuurta, masaarida, Suudaanta iyo Kenyaanka. Sidoo kale qaaradda Asia waxaa ka yimid Hindida, Bangaalida, Nepalka iyo Chinese-ka. Qaab siyaasadeedka wadankan South Sudan waa qaab jamhuuri ah oo hal qof ay awoodda gacanta ugu jirto. Oo waa dal xirxiran oo hal nin ayaa ka taliya inta badanna kama dhacaan wax isbeddelo ah. Ma arkaysid baarlamaan shirayo hindisa sharciyeed la soo saarayo mucaarad iyo muxaafid iyo wixii aad ku taqiinay Soomaalida iyo Kenyaba. Sidaas ay tahay wuxuu leeyahay golo baarlamaan oo ka kooban 322 xubnood sida uu qabo heshiiskii dhaqan galay 22 bishii Febraayo sanadkii 2020. Heshiiskaas oo dhigaya in dawladdu tahay ku meel gaar waxaana wada hogaaminaya golo wasiiro oo ka kooban 35 wasiir inta badanna iska magac u yeel iska ah sida boqoradii Ingiriiska oo kale Queen Elizabeth. Sidaas ay tahay waa dal degan siyaasad ahaan waxaa la dhihi karaa waxaa ka jira xasilooni siyaasadeed maadaama la kala adag yahay. Inta badan Soomaalida ku nool dalkan waxay ku howlan yihiin ganacsiga waxayna isugu jiraan kuwa ganacsiga leh iyo kuwa kale oo iyaga u shaqeeya. Sidoo kale waxaa jira qolyo darwalla oo inta badan alaabta ka keena dekedda Mombasa
ee waddanka Kenya. Ganacsiga Soomaalida wuxuu isugu jiraa soo dhoofinta shidaalka, cunnada, qalabka elektarooniga sida taleefannada iyo aaladaha kale ee smartka ah iyo qalabka dhismaha. Inta badan Soomaalida ku nool dalkan waxay ka yimaadeen Kenya, sidoo kalena way jiraan kuwa kala yimid Soomaaliya. Sidoo kale inta badan ganacsatada waxay ka yimaadeen qurbaha. Soomaalida waa dad is caawiya oo jaaliyad leh, sidoo kale safaarad ayaa sii dheer. Waxayse dhib ku dhigeen qabyaaladda oo ah isha koowaad ee shaqo lagu helo, iyo tartan aad u xun oo ka dhex jira gudaha ganacsiga oo laga yaabo xitaa inay khasaaraan marmarka qaar oo dhulka la isu dhigo sicirka alaabta la gado, taas oo mararka qaar keenta in ganacsiyo galaan bankruptcy iyo inay suuqa ka baxaan. Isku soo wada duubee, dalkan waa meel Soomaalida ku haysato ganacsiyo bulaalay oo faa'iido badan sameeyay.